marka koobaad u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta iyo madaxda madasha Maankulan iyo maktabada Kismaayo waxaa kaloo u mahadcelinayaa walaalkeen Axmed oo runtii noo jeedin doona barnaamij aan aad iyo aad ugu baahannahay oo haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay ay tahay in maanta iyo waayadanba aan ku dhiirano oo aan xog fiican ka hayno si aan taariikhdeena iyo dhaqankeena hidaheena aan u qorno waxaan kaloo u mahadcelinayaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijka rag iyo dumar oo runtii waqti aad iyo aad qaali u ah u soo horay in ay barnaamijka ka soo qayb galaan barnaamijyo badan baa la qabtaa dad badan oo Kismaayo ku nool yihiin laakiin qofka halkan imaanaya uma imaanayo inuu lacag helo uma imaanayo inuu wax kala sameeyo uma imaanayo in mansab iyo maqaam u ziyaado waxa uu imaanay inuu aragti iyo aqli iyo fahan iyo wacyi u ziyaado taasana muhiim ah maanta xilliga la joogo qofka inuu xog helo inuu aqoon helo inuu aragti helo taasa muhiim ah sidaan ognahay waxaan qabanaynaa barnaamij walaalkeen Axmed soo jeedinaya akhriska iyo qoraalka iyo faa'iidooyinka ay leedahay iyo sida mujtamacaadku ugu horumareen arintaas waxa ugu muhiimsan ee aan sheegi karno waxa in badan in la sheegay ilaahay markii uu Nabi Maxamed soo diray wax uu horeeyay oo ku bilaabay wuxuu ahaa iqra akhri marka akhriada waxaad ogaanaysaa waxa aad tahay waxaad ogaanaysaa xageed u socotaa waxaad ogaanaysaa waxaad u baahan tahay ummad aan lahayn sooyaal ma lahaato mustaqbal iyo xilli ay nooshay sooyaalkeeni waxaan ku kaydin karnaa qoraal haddaan inaga Soomaaliyeed hadal baa inta badan waqti badan naga qaato oo waan sheekaynaa laakiin wax ma qorno sadarteed baa waxa la dhahaa Soomaalida iyo Afrikaankaba qof weyn markuu dhinto waxaa dhimata maktabad sababtoo awowga iyo ayida waxay hayaan xog iyo taariikh aad heli karin haddii ay qoraan waxbay ka tagi lahayn laakiin iyagoo sidii ah oo matxaf ah oo maktabad ay dhintaan si taa marka aan uga gudubno waxaan u baahannahay inaan maanta jiil daayar ah oo wax akhriya waxna qoro intaada wax akhriyo waxa u baahan tahay marka aad wax qortid intaada wax qorin waxa u baahan tahay inaad wax akhriyo sababtoo ah waxa la dhahaa qaari kasta qof kasta oo wax akhriya oo wanaagsan waa kaatib wanaagsan oo wax qori kara laakiin haddii aad waxba akhriyin haddii aad maanka ka gaajaysan tahay haddii aad maskaxdaadu aysan cilmi kugu filan aad haysanin waxa ma qori kartid marka waxa u baahannahay in mashruucan muhiimadiisu barnaamijka walaalkan soo jeedinayo waxa weeye waxaan nahay ummad ka aradan dhaqankeedii waxaan nahay ummad marti ka ah sooyaalkeedii marka si aan sooyaalkeena inaga u qorano mustaqbalka soo socda inagu aan saarno uga dhigano waxaan u baahannahay inaan wax akhrino oo wacyi yeelano oo aragti yeelano taana waxay ku imaanaysaa maaragtay in qofku uu ka dhawaado meelaha aqoonta leh uu ka dhawaado meelaha faafiya aragtida wanaagsan waqti